madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu caawa kulan afur u sameeyay ilaa 30 qofood oo ka socotay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. kulankan waxa uu ahaa midkii shanaad ee uu Farmaajo la qaato qaybaha udub dhaxaadka u noqon kara inay dib u iibiyaan siyaasaddiisa ama ay garab istaagaan. wuxuu labadii asbuuc ee la soo dhaafay qaabilay dhalinyarada, culimada, dhaqaatiirta iyo ganacsatada. kani waxa uu ahaa kulankii shanaad ee Farmaajo doonaya inuu dib boorka uga jafo siyaasaddiisa. kulankan waxaa la diiday in la duubo ama sawir laga qaado. agaasimayaasha iyo madax qaybeedyada wasaaradda warfaafinta ayaa u dhamaa kulanka. waxaan joogin wasiir Dubbe iyo ku-xigeenkiisa Al-Cadaala oo labaduba safar uga maqan dalka. mid ka mid ah xubnihii ka qayb gala kulanka ee ka socday wasaaradda warfaafinta oo diiday inaan magaciisa xiganno ayaa soo koobay hadal hal saac socday oo uu Farmaajo u jeediyey xubnaha wasaaradda warfaafinta ee uu caawa la furay. waxa uu ka hadlay dowladnimada iyo qabiilka. waxa uu sheegay inay dad aqoon-yahanna qarankii ka doorbideen qabiil oo ay ku doodayaan inaanay kala maarmin qaranka iyo qabiilku. waxa uu intaa ku daray inay taasi tahay wax laga xumaado oo ceeb ah. waxa uu sheegay inuu u haystay in reer miyiga oo kaliya ay ku dambaysa qabyaaladdu, balse ay tahay wax laga xumaado in dad wax bartay ay waxaasi ku hadlaan. madaxweynuhu waxa uu ka booday farqiga u dhaxeeya qabiil iyo qabyaalad. hadalkan waxa uu Farmaajo ugu jawaabay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo dhawaan waraysi ku sheegay in qaranka iyo qabiilku isku sahan yihiin oo aan la kala reebi karin xilligan. Farmaajo waxa uu qodobkan isku ilowsiiyey in gobolka reerkiisa ee Gada awgii inuu u fashiliyey shir dhan oo looga hadlayay aayaha Soomaaliya oo ka socday magaalada Dhuusamareeb. waxa uu ka dhuuntay Farmaajo inuu Axmed Madoobe u diiday inuu reerkiisa xukumo. wuxuu kaloo inkiray in nidaamkii uu wasiirada iyo xubnaha dawladda ku qaybinayay 4 sano la soo dhaafay inuu ahaa hab qabiil oo ay Soomaalidu ku heshiisay. inta ay Soomaalidu saamiga dawladda ku qaybsanaysa 4.5 waa adag tahay in la kala saaro qaranka iyo qabiilka. lama yaqaano waxa Farmaajo ku qaaday inuu jawaab u raadiyo xildhibaan waraysi bixiyay. waxa uu ka hadlay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Farmaajo oo aan cidna la doodayn halkiisa saac waxa uu dagaaladaasi ku sifeeyay kuwa qabyaalad xambaarsanaa. waxa uu sidoo kale sheegay inay dagaaladaasi ahaayeen mashruuc uu shisheeye ku dhex jiray. waxa uu mar kale qodobkan ku inkiray in muddo kororsigii uu qaatay uu ahaa sababtii dagaalada xamar. waxa uu kaloo daahir ka dhigay ajnabigii isaga taageerayay 4 sano ee la soo dhaafay sida Qatar iyo Itoobiya kuwaas oo aan maalinna Farmaajo ku dhaliilin tacadiyada ay dawladdiisu ka geysatay dalka. waxa uu Farmaajo caawa ka hadlay dagaaladii uu la galay maamul goboleedyada. waxa uu sheegay in hanaanka federaalku uu ahaa mashruuc ay wadatay dawladda Itoobiya. waxa uu ku nuunucsaday in Itoobiya rabtay inay maamul goboleedyada xoojiso oo ay gooni ula macaamisho dawladda dhaxan ay sidoo kale ula macaamisho gooni. waxa uu sheegay inuu isagu rabay in awoodda maamul goboleedyada hoos loo dhigo oo si fiican loo dhimo laguna dhaqo xeer laga soo saarayo baarlamaanka Soomaaliya, balse ay suurtoobi weysay. sababta uu qorshahaas u suurtoobi waayay waxa uu ku sheegay inay tahay faragelin ajnabi. qodobkan waxa uu Farmaajo ku xaqiijiyey fikirkiisii federaal diidka ahaa, inkastoo markii la doortay uu ku dhaartay inuu ilaalinayo dastuurka dalka kaasoo cutub ka mid ah uu sheegayo inuu dalku yahay federaal. waxa uu aad ugu dheeraaday inuu ammaano fikirkiisii siyaasiga ahaa ee 4 sano la soo dhaafay. wuxuu hoos u dhigay inay isdhintay rajadii iyo taageeradiisii shacabka. wuxuu faray howlwadeenada wasaaradda warfaafinta inay xoojiyaan baahinta arrimaha la xiriira wadaniyadda. inkastoo ilaa hadda Soomaalidu fahmi laadahay waxa uu Farmaajo u yaqaano wadaniyad. xogtan waxaana la wadaagay mid ka mid ah xubnihii ka socday wasaaradda warfaafinta ee ka qayb galay kulankii afurka ahaa ee caawa dhex maray hogaamiyaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo agaasinka iyo madax qaybeedyada wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Farmaajo ayaa weli sii wada kulamada uu ku soo celinayo sumcadiisa siyaasiga ah oo si weyn hoos ugu dhacday tan iyo markii uu dagaal dhig ku daatay ka riday bartamaha caasimadda. maxay kula tahay?